inay ku lug leeyihiin falal lagu qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladnimada Puntland. Golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa soo saaray in la maxkamadeyn doono ciidamadii markaasi laga qabsaday ama saraakiishii laga qabtay ciidamada BSF oo markaasi dagaalo kala duwan lagu la galay magaalada Gaalkacyo iyagoo saaka waa berigii hore isaga baxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee maamulka Puntland. Xaradii ugu weyneed ee BSF-ta ee markaasi taliskan looga tiri jiray ciidamadan BSF ee ku tiilay magaalada Boosaaso ayay isaga baxeen ciidamadaasi. Golaha wasiirada maamulka Puntland shirey ku yeesheen magaalada Garowe oo shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa looga dhawaaqay in la maxkamadeyn doono saraakiishii iyo sidoo kale ciidamadii laga qabtay dagaaladii lala galay ciidamada BSF ee markaasi ka dagaalamay magaalada Gaalkacyo gobolka Bari. waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad iyo xogo dheeri oo ka soo baxaya sababta ay Puntland ay markaasi ay ugu guuleysatay in markaasi guud ahaan maamulka Puntland ay isaga saarto ciidamadii BSF ee ku sugnaa magaalooyin kala duwan ee Puntland ee maamusho. dhinaca kale waxaa socda dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay wado oo ay ku doonayeen in markaasi dib loo wareegto xariyahaasi. waxaa la sheegay in madaxtooyada Soomaaliya looga yeeray Asad Cabdullaahi Diyaano waa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo markaasi kala hogaaminayeen ciidamada markaasi laga wareegay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waa Cabdullaahi Diyaano walaalkaas Diyaano sidoo kale ciidamadii xarada markaasi Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo laga wareegay ee BSF-ta waxa hogaaminayay walaalka Asad Diyaano ee Maxamuud Diyaano lagu magacaabo. wararkii ugu dambeeyay xogaha maamulka Puntland iyo macluumaad dheeri oo halkaas ka soo baxaya ayaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa. soo dhawaada saaxiibayaal waa maalinimo Khamiis taariikhdu ku aasaysan tahay 6 bisha 8 ee August sanadda 2026. haddii aynu ku bilaawno ciidamada maamulka Puntland ayaa saaka waa berigii waxay u suurta gashay in nabad ay kula wareegaan xarada markaasi taliska ciidamada BSF ee ugu weyneed ee looga tali jiray 20 sano ku dhawaad ee ku tiilay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. golaha wasiirada maamulka Puntland shirey ku yeesheen magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ahna caasimadda maamulka Puntland oo shir gudoominayay waa madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ku aadan in la maxkamadeyn doono maleeshiyad ay sheegeen in lagu qabtay howlgal markaasi sifaynta maamulka Puntland oo ka fuliyeen ciidamada booliska Puntland iyo ciidamada daraawiishta maamulka Puntland magaalooyinka kala Gaalkacyo gobolka Mudug iyo sidoo kale magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ahna xarunta ganacsiga maamulka Puntland. golaha wasiirada maamulka Puntland shirka toddobaadlaha ah ee ka dhaca maalin walba oo Khamiis magaalada markaasi Garowe caasimadda Nugaal ayaana dhinaca kale waxa looga hadlay in looga guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud isku day saddex uu ku doonayay in markaasi ama saddex isku day uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo ammaanka ka jira magaalooyinka Puntland. waxayna golaha wasiirada ay tilmaameen in markaasi xilligan wixii ka dambeeyaba ammaanka maamulka Puntland ay sugi doonaan ciidamada BSF-ta ee maamulka Puntland iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta maamulka Puntland kuwa booliska oo sida waaweyn ugu sugan magaalooyinka Garowe Gaalkacyo iyo sidoo kale magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ahna xarunta ganacsiga maamulka Puntland. saaka waa berigii ciidamada BSF ee ku sugnaa waqooyiga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari halkaas oo isaga baxeen waxaana tan iyo xalay soconaysay waanay wadeen odayaasha dhaqanka sidii loogu guuleysan lahaa in ciidamadan si nabad ah ay u baneeyaan xarada Boosaaso ee waqooyiga magaalada markaasi Boosaaso ee ahayd taliskii ugu weyneed ee ciidamadan BSF-ta tan iyo muddo 20 sano ay ku sugnaayeen maamulka Puntland looga arriminayay. Siciid Cabdullaahi Deni jawaab uu siiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u muuqata inay markaasi tii ku habboonayd ay noqotay. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo markaasi bilooyinka magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu sheegay in markaasi iska dhaaf kumanaane ay 20 kun 30 kun oo askari ka qoran doonaan maamulka Puntland balse hadalkaasi waxa ka jawaabay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu yiri Puntland waxay yeelan doontaa ciidan u gaar ah ciidamo markaasi rag leeyihiin Puntland waa ka masaafuro doonaa waxaana Puntland ka dhigi doonaa magaalooyin markaasi ciidamo gaar ah oo xukuumadda leedahay ama dawladdu leedahay inay ka taliyaan maamulka Puntland ayaan markaasi gacanta u geli doonaa ciidamada ammaanka maamulka Puntland. Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu iska soo afjaray in markaasi jawaabihii dowladda federaalka Soomaaliya hawada u marsiinaysay isagoo si ficil uga jawaabay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu ku guuleystay in markaasi uu iska saaro ciidamo ka amar qaadan karin oo markaasi isaga ka sareeya ciidamada BSF-ta waxa markaasi 20 sano ku sugnaayeen magaalada Boosaaso waxaana la yaab leh ama markaasi dadka shacabka ay isweydiinayaan ama daawadayaasha
sababta markaasi ciidamadan oo 20 sano ku sugnaa magaalooyinka ay maamusho Puntland sida degdega ah ee 24 saac uu qabtay Siciid Cabdullaahi Deni ay isaga baxeen magaalooyinka ay ka taliyaan ee maamulka Puntland. Siciid Cabdullaahi Deni magaalada Garowe maalinimadii shalay ahayd oo ka hadlay waxa uu qabtay ciidamadan in muddo 48 saac ama 2 maalmood ay isaga baxaan magaalooyinka ay Puntland ay maamusho, waxaana loolanka markaas u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ba haatan ku guuleystay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo kaga adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maayiraada ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre waxaana kaga adkaadaba hadallo ay dhawaan jeedinayeen. Xamse Cabdi Barre waxa uu dhawaan uu sheegay in Puntland laga qori doono ku dhawaad 30 askari oo markaasi ama 30,000 oo askari oo ay mushaar siinayso dowladda federaalka Soomaaliya. Siciid Deni hadalkaasi uu ka jawaabay waxa uu sheegay in ciidamada ka amar qaadan isaga xukuumaddiisa aan Puntland lagu arki doonin. Hadalkii Siciid Cabdullaahi Deni ayaana markaasi dhaboobay iyadoo markaasi xukuumadda maamulka Puntland ay ku guuleysatay inay banaanka u saarto ciidamadii markaasi ku sugnaa magaalooyinka ay Puntland maamusho. dhinaca magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug hadii aynu dib ugu laabano xaaladeedu maanta way deganeen ciidamadii xerada barda dheer ku sugnaa ee markaas magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo ay ka guureen halkaas waxay gaareen dhanka Galmudug ee maamusha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waana odayaasha dhaqanka wadeen ayaana haysadu halkaas ku deganeed dhinaca magaalada Boosaaso xalay gurmade kala duwan ayuu geeyay Siciid Cabdullaahi Deni waxaana saaka waa berigii isaga baxay ciidamadii BSF-ta xaradii taliska looga talinayay muddo 20 sano ayayna isaga baxeen ciidamadan BSF-ta waxaana odayaasha dhaqanka ay ku guuleysteen in xiisada si nabada markaasi loo ay ciidamadan isaga baxaan magaalada Boosaaso waxayna gaareen magaalada Qardho ee Cariga iyo markaasi waqooyi bari ee Laascaanood. Siciid Cabdullaahi Deni haatan wuxuu ku naaloonayaa in markaasi isagu ama booca ku jiifanayeen isaga ciidamadiisu oo kaliya ay ka talinayaan maamulka Puntland. dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya hadii aynu eegno dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyo wada ku aadan sababta keentay in markaasi ciidamadii BSF-ta fara badan laga furto hub la sheegay in markaasi taliyaha ciidanka booliska Asad Diyaano oo ka dhibay magaalada caasimadda Muqdisho ee gacanta maamulka Puntland ay galaan waxaana markaasi si shir degdeg ah oo markaasi looga yeeray madaxtooyada Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Asad Diyaano markaasi walaalo asiga la dhashay loo kala magacaabo Cabdullaahi Diyaano iyo sidoo kale Maxamuud Diyaano ayaa kala hogaaminayay ciidamada BSF-ta ku sugnaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale maamulka ayraad ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xaruntii taliska ugu ahayd ninka maamulayay Cabdullaahi Diyaano ninka lagu magacaabo oo markaasi walaalka Asad Diyaano haysada maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni inuu ku guuleystay iyo markaan u muuqataa lama oga talaabooyinka ay qaadi doonto dowladda federaalka Soomaaliya ku aadan sidii markaasi gacanta ugu dhigi lahayd xariye Siciid Cabdullaahi Deni oo ka saaray ciidamadii BSF-ta ee markaasi ka dagaalamayay buuraha caalamiska ee gobolka Bari. Siciid Deni isagoo ciidamo u gaar oo BNBF iyo sidoo kale kuwa daraawiista iyo sidoo kale kuwa booliska ayaa caawa uga talinaya magaalooyinkaasi isagoo markaasi ku guuleystaba inuu dibadda u saaro ciidamadii ka amar qaadanayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waqtiga dheeriga ku jooga dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha ka soo kordha halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa.